tahay February 2020 2017 waxaan isku yeelay shirkeygan jiray inaan kaga hadlo dhowr arrimood oo ugu horeyso BBC-da oo dhexdhexaadnimadii iyo wararkii xaqiiqada ku dhisnaayay lagu yaqaanay ka baydhay oo u leexatay inay noqoto madinac ka raran iyo inay warar aan jirin oo dacaayada ka faafiyaan jamhuuriyadda Soomaaliland waxa kale oo aan yar ka taabanaya xiriirka soo jireenka ahaa ee ka dhaxeeya boqortooyada Ingiriiska iyo BBC-da iyadoo dadka reer Soomaaliland haayeen kuwii Soomaalida kale ku soo xidhay ee baray dhageysiga BBC-da la soo noqoshadii madax banaanida Soomaaliland waxaan filaynay in BBC-du door fiican ka ciyaari doonto qadiyada jiritaanka jamhuuriyadda Soomaaliland oo ah mid dhexdhexaadnimo ku saleysan hase yeeshee waxa ay bilowday BBC-du inay dagaal badheer ah oo lid ku ah jiritaanka iyaga ku fognaato muddada ay hawada ku jirto waxay buunbuuniyaan dhacdooyinka yaryar ee aan xidido dheer lahayn ee gudaha jamhuuriyadda Soomaaliland ka jira iyagoo sida kalena daaha saara wixii horumar iyo waxqabad ah ee wanaagsan ee ka jira jamhuuriyadda Soomaaliland waxay had iyo jeer qabanqaabiyaan oo ay soo xushaan inta caanka ku ah nacaybka qadiyadda jamhuuriyadda Soomaaliland iyo arrin kasta oo ay ku kala aragti duwan yihiin siyaasiyiinta ummadda jamhuuriyadda Soomaaliland oo ah qayb ka mid ah tiirarka dimuqraadiyadda ee dalkan uu ku bisan yahay arrimaha waxaa ka mid ah oo ugu dambeeyay heshiiskii ay wada galeen dowladda Imaaraadka Carabta iyo jamhuuriyadda Soomaaliland gaar ahaan shirkadda DP World ee dib loogu casriyeynayay dekadda Berbera iyo heshiiska hadda ee saldhigga madaarka Berbera ee ay ansixiyeen 144 xildhibaan oo ay BBC-du si khaldan uga turjumaan masiirka ummadda jamhuuriyadda Soomaaliland si ay u marin habaabiyaan rayga caalamka sidoo kalena iyagoo aan miisaamin aragtiyaha lagu kala duwan yahay oo ay aqlabeedu wanaagsan dhinac tahay macnaheedu yahay ma eegaan waxa ummadda majority-geedu ama dhaqankeedu aqlabeedeed waxay eegaan afarta ama saddexda maxaan ku dhahdaa ee jooga ayay maxaan ku dhahdaa doodaha siyaasiga ee BBC-du waa kuwa ka fog xaqsoor waayo markastoo ay qabanqaabiyaan dood waxay microphone-kooda soo fadhiisiyaan 3 qof oo Soomaali ah iyo qof Somaliland taas oo aan ahayn wax isku dheelitiran waxay taa waliba ku sii laadhaan dad ay sii diyaariyaan oo kala soo xidhiidha baraha bulshada kuwaasoo ay aragtidoodu dhanka tahay qadiyadda iyo jiritaanka jamhuuriyadda Soomaaliland BBC-du waxay jamhuuriyadda Soomaaliland mar badan ka dhigtaa mid ka tirsan gobollada loogu yeero mid ka tirsan gobollada loogu yeero federaalka Soomaaliya tusaale ahaan 3 February 2017 doodii lagaga hadlayay khilaafaadka dhinaca badda ee Kenya iyo Soomaaliya ayaa xataa ay ku lifaaqeen xuduudaha badda jamhuuriyadda Soomaaliya. Su'aashu waxay tahay
بالحقيقة يسكسوا قلان بدأ جمهورية الصوماليلان هي بدأ محاكو لعباء صوماليا يا كينيا أي حدك كود اللي waxaa kaloo ay muran iyo doc ka wareen ku sameeyaan wareeyaasha daadihinaya dooduhu markastoo ay hadalka siiyaan halka qof ee Soomaaliland isagoo aan wax ka taaban ama gaarin qodobkii doodiisa iyagoo saddex keena saddex iyo mid ay tahay ayaa haddana kaas aan u ogolaan inuu qodobkiisa ka hadlo doc kooreen iyo maxaan ku dhahdaa iyo ubadho aan loo dul qaadan karin marwalba ay ku hayaan waxa kale oo ay inta u sii dheer inay qayb ka siiyaan doodahaasi siyaasiyiin la shaqeeya ama loo tiriyo inay taabacsan yihiin xukuumadda Soomaaliya kuwaas oo ay ugu yeedhaan aqoon-yahano dhexdhexaad ka ah arrimaha Soomaaliya iyo Somaliland balse aan ahayn ku caan baxay nacaybka iyo lidka ay ku leeyihiin Jamhuuriyadda Soomaaliya sidoo kale ka qaybgalka doodaha siyaasiga ee xiriirka baraha bulshada waxay ku martigeliyaan inta aragtidoodu ka dhanka tahay jiritaanka Jamhuuriyadda Soomaaliya iyadoo ay marka horeba si ka baxsan dhexdhexaadnimada ay u soo dhex dhigaan doodo hal dhinac ka tirsan ayay haddana waqti ka badan ka halka qof ee Jamhuuriyadda Soomaaliland siiyaan mid kasta oo ka mid ah saddexdii kale isku aragtida ka qabay Soomaaliya runtii waxaan kugu adkeenayaa inaad kala waxaa kugu adkaanaya inaad kala saarto warbaahinta Muqdisho iyo BBC-da oo aad moodo mid laga wada maamulo magaalada madaxda Soomaaliya ee Xamar dhammaan waxyaabaha aan soo xusay hore ayaan ugu gudbinay madaxda sare ee BBC-da qaybta Afrika iyo talaanta af Soomaaliga ee BBC-da nasiib darase wax jawaaba kama aanay hadda qoraal kale ayaan u diraynaa BBC-da madaxdeeda Solomon oo ninka maamula BBC-da adduunka oo dhan qoraal kale ayaan u diraynaa waxay noqonaysaa in wixii intaa ka dambeeya ay nagu waajib tahay inaanu ku xisaabtano sidii aan u difaaci lahayn jiritaanka qaranimada Jamhuuriyadda Soomaaliland oo aanan cidna uga habran haddii BBC-da tahay iyo haddii organization kale oo maxaan ku dhahdaa weeqaya ama waxyeelaya jiritaanka Jamhuuriyadda Soomaaliland ay ka mid tahay waxa kale oo aanu dib u eegi doonaa heshiiska aanu wada galnay BBC-da ee dhinaca warbaahinta hadda wixii laga bilaabo Jamhuuriyadda Soomaaliland taas waxaa ka go'an ummadda Jamhuuriyadda Soomaaliland meel kasta ay joogaan iyo wasaaradda warfaafinta iyo wacgelinta Jamhuuriyadda Soomaaliland madaxda ka ahay inaanan u dulqaadan nin wariye oo BBC-da u shaqeeya oo ku gabanaya sharka wariyenimo laakiin ay ku dhexdhexaadnimo ka dheer tahay oo ku salaysan fikirkiisa iyo nidaamkiisa mid qabiila iyo mid Soomaaliya oo Soomaaliya ku weyn